liin dhanaantu waa nooc ka mid ah khudradda ama miraha waxaana laga helaa noocyada kala duwan ee nafaqada. Haddaba waxaan doonayaa in aan wax idinkaga sheego qaar ka mid ah faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo liin dhanaanta. Intaan u gudagelin waxaan si gaar ah kaga codsanayaa in aad muuqaalka share gareyso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xiran si ay uga faa'iidaystaan. Sidoo kale muuqaalka like saar, page-kana follow dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada maalinlaha aan halkan soo geliyo. Mahadsan. Liin dhanaantu waxay ka kooban tahay qaybaha kala duwan ee nafaqada, balse waxay qani ku tahay fitamiinada sida vitamin C, vitamin B9 iyo noocyada kala duwan ee vitamin B complex sida thiamine, riboflavin iyo niacin. Sidoo kale waxaa laga helaa fiberka, calorieska iyo xaddi yar protein, carbohydrate iyo fat oo aan badnayn. Sidoo kale liin dhanaantu waxaa ku jira ama laga helaa noocyada kala duwan ee macdanta sida iron, magnesium, potassium, calcium. Guud ahaantooda waxay muhiim u yihiin caafimaadka jirka, oo haddii midkood jirkeenu uu ku yaraado oo caafimaadkaaga khatar geli. Liin dhanaantu waxay sare u qaadaa ama ay xoojisaa difaaca jirka, maxaa yeelay xaddiga badan ee vitamin C-ga ku jira ayaa wuxuu ka shaqeynayaa in difaaca jirku ay xoogaystaan. Sidoo kale liin dhanaanta waxaa ku jira ama laga helaa ashita loo yaqaano citric acid oo waxay burburisaa ama ay jijibisaa dhagxaanta ku samaysma kiliyaha iyo xameetada. Liin dhanaantu waxay yareysaa amaba ay ka hortagtaa caabuqyada amaba infekshanada, maxaa yeelay vitamin C-ga ku jiro liinta ama laga helo liinta ayaa waxay la dagaalantaa noocyada kala duwan jeermiska sida bakteeriyada iyo fangaaga. Liin dhanaantu waxay caawisaa shaqada beerka oo waxay beerka ka nadiifisaa waxyaabaha sunta ah oo beerka halis u keeni kara sida uric acid-ka. Liin dhanaantu waxay ka hortagtaa dhiig yarida, maxaa yeelay waxaa ku jira folate ama folic acid ama vitamin B9 hadba sidaa u taqaanid. Sidoo kale waxaa ku jira macdanta iron-ta oo ka qayb qaata kobcinta unugyada dhiigga cascas. Liintu waa jeermis dila xoog badan ama asal ah, waxay la dagaalantaa jeermisyada sida fangaiga, bakteeriyaga iyo waxyaabaha la midka ah. Sidoo kale liintu waxay ka qayb qaadataa bogsashada dhaawaca sida dadka ciridka ka dhiiga ama leh dhaawacyada aan bogsanaynin. Sidoo kale liin dhanaantu waxay aad ugu wanaagsan tahay haragga ama maqaarka, maxaa yeelay vitamin C-ga laga helo liinta waxay caawisaa samaysanka collagen-ka. Collagen-ka wuxuu ka qayb qaataa badqabka iyo caafimaadka haragga ama maqaarka. Aad ayuu ugu wanaagsan yahay maqaarka. Qodobka ugu dambeeyo, liin dhanaantu waxay xoojisaa xididada dhiigga si uusan dhiig bax u dhicin ama xididka uu dilaacin, gaar ahaan dadka qabo xanuunka dhiig karka. Ugu dambeyn waxaa idinkula talinayaa in aad si joogto ah u isticmaashaan liin dhanaanta. Fadlan ha iloobin in aad muuqaal ka share gareyso oo aad la wadaagto asxaabta kugu xiran si ay uga faa'iidaystaan. Sidoo kale muuqaalkani like saar, page-kana follow dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada maalin walba aan halkan soo geliyo. Mahadsanid. Intaasaan kusoo gabagabeynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.